sanadkii 1894 dalka Jarmalka caruur ciyaaraysa ayaa mid ka mid ah caruurtaas si kedis ah ugu dhacay webi ay ku ag ciyaarayeen. Inankii yaraa wuxuu ku sigtay inuu ku qarqoomo webiga, balse nin markaas ka ag dhawaa ayaa badbaadiyey. Inankaas la badbaadiyey ayaa 40 sano kadib isu beddelay mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu arxanka darnaa taariikhda. Waxaan u jeednaa Adolf Hitler. Magac yar iyo weynba ay garasho fog u leeyihiin. haddaba maxay ahayd sirtii ka dambaysay cadaawadda xad-dhaafka ah ee uu qabay Hitler, gaar ahaan tii uu u qabay Yuhuudda? halkaani waa waa bari ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta waxa idin la socodsiinaya anigoo ah diiriye intaynan u guda gelin muuqaalkeena maanta fadlan like saar mahadsanid. bilowga taariikhda Hitler. Adolf Hitler wuxuu dhashay 20kii bishii afraad sanadkii 1889 dalka Austria. xilligaas dalalka Austria iyo Jarmalku waxay ahaayeen hal dal. Hitler aabihii wuxuu ahaa nin dabeecad adag oo si xun ula dhaqmi jiray inankiisa, halka hooyadii oo la oran jiray Karla ay ahayd tan keliya ee uu naxariis ka heli jiray. taasina waxay keentay inuu u qaado jacayl xad-dhaaf ah. waxbarashadii iyo hamigii farshaxanka. Hitler yaraantiisii wuxuu ahaa mid aan ku fiicnayn waxbarashada dugsiga, taasoo keentay in markii uu 16 sano jiray uu isaga baxo waxbarashada. wuxuu u jihaystay magaalada Vienna. inkastoo uu jeclaa waxbarashada, haddana wuxuu lahaa hibo uu isku dayay inuu ku dadaalo si uu meel uga gaaro. hibadaas waxay ahayd sawiridda iyo farshaxanka. wuxuu isku dayay inuu ku biiro kulliyad lagu baran jiray farshaxanka oo ku taala magaalada Vienna, laakiin wuxuu la kulmay diidmo cad oo albaabada looga soo xiray. taasina waxay ka dhigtay inankan yar ee rajada iyo yididiiladu ku jirtay mid waaya fursad uu aad ugu haminaye. haddii aan dhinaca kale eegno noloshiisii maadiga ahayd, Hitler wuxuu ahaa sabool iyo derbi jiif aan waxba haysan. wuxuuna ku wareegi jiray goobaha ay seexdaan dadka nolosha ka dhacay iyo dadka saboolka ah ee aan haysan meel ay degaan. xilligaas Yuhuuddu waxay ahaayeen kuwa ka talinayay magaalada Vienna, gacantana ugu jirtay dhammaan bangiyada, sarifka iyo xataa iibinta farshaxanada iyo sawirada. waxay samayn jireen inay sawirada qiimo yar ku iibsadaan, kadibna dib ugu iibiyaan qiimo 10 jibaar ka badan qiimihii ay ku iibsadeen. arrintan ayaa lagula dhaqmi jiray Hitler, oo sawiradiisa lagu iibsan jiray qiimo aan u qalmin. tani waxay ku beertay inankan yar cadaawad uu u qaado Yuhuudda, ka hor intaan cadaawaddaasi xidido adag yeelan. muddo yar kadib, sida aynu in yar kadib arki doono, intii uu joogay Vienna, Hitler wuxuu gaadhay heerkii ugu hooseeyey ee nolosha, saboolnimo iyo faqriga. wuxuuna seexan jiray waddooyinka, taasoo ku qasabtay inuu go'aansado inuu dib ugu laabto dalkii uu ka soo jeeday ee Jarmalka. markii uu soo noqday, wuxuu la kulmay hooyadii oo ku dhacay xanuunka kansarka. muddo yar kadibna hooyadii way dhimatay. dhacdadani waxay ku beertay Hitler murugo aan weligeed ka faro qaadin wejigiisa. xataa marka aad fiirsato sawiradiisa, waxaad ka dhex akhrisan kartaa murugo wejigiisa ka muuqata. sawir qaadihiisii gaarka ahaa ee la oran jiray Henry Hoffman ayaa ku sifeeyey inuusan weligiis arkin qof indhihiisa murugo inta leeg ka muuqato. taariikhyahanadu waxay tilmaamaan in geeridii hooyadiis ay ahayd meeshii ay xidido adag ka yeelatay cadaawaddii uu u qabay Yuhuudda. waxaa la sheegaa in dhakhtarkii daaweynayay hooyadiis oo la oran jiray Edward Bloch, oo asalkiisu ahaa Yuhuudi, uu si khaldan ugu duray irbad aan ahayn tii saxda ahayd, taasoo keentay geerideeda. sannadkii 1901 Hitler wuxuu bilaabay inuu ka soo kabsado duruufihii adkaa ee uu sannadahaas la soo tacaalayay. wuxuu ku biiray urur dhalinyaro oo u ololeynayay Jarmalka Austria, kana soo horjeeday boqortooyadii xilligaas ka talinaysay dhulka loo yaqaan Austria-Hungary. bishii 8aad sannadkii 1914 waxaa qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka. Hitlerna wuxuu xilligaas ku noolaa magaalada Munich. wuxuuna si mutadawacnimo ah ugu biiray ciidanka gobolka loo yaqaano Bafaariyaanka. shaqadii uu Hitler ka hayay dagaalka waxay ahayd inuu fariimaha ama qoraallada u kala qaado ciidamada dagaalka ku jira iyo kuwa difaacyada fadhiya. waana mid ka mid ah shaqooyinkii ugu halista badnaa ee dagaalka. Hitler intii uu dagaalku socday, wuxuu fariimaha iyo dhambaallada u kala qaaday ilaa 10 furimood oo ay ciidamada dalka Jarmalku dagaalka uga jireen. ilaa markii dambe uu ku dhaawacmay furin ka mid ah furimihii uu dagaalku ka socday.
markii uu dagaalkii soo gabagaboobayna wuxuu Hitler ku guulaystay doorkii uu dagaalka ka qaatay awgeed abaalmarinta dahabiga ah ee geesiga dagaalka. Kadib markii uu dagaalku si rasmi ah u soo gabagaboobay, Hitler wuxuu mar kale yimid magaalada Munich, wuxuuna markan u xuub siitay gelitaanka caalamka siyaasadda. wuxuuna ku biiray xisbiga hantiwadaagga shaqaalaha Jarmalka, loona yaqaano xisbiga Naasiga. Sanadkii 1923 ciidan ka tirsan ciidanka xoogga ee dalka Jarmalka, kana mid ahaa xisbiga Naasiga, uuna hogaaminayay Hitler, ayaa sameeyey iskuday afgambi oo ay doonayeen inay talada uga tuuraan xukuumaddii xilligaas xukunka haysay, balse way ku guuldarraysteen damacoodii. Hitlerna waxaa lagu tuuray xabsi, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah. balse 9 bilood kadib ayaa jeelka laga sii daayay kadib markii uu ku andacooday inuu ka tanaasulay fikirkiisii hore, waana laga aqbalay codsigiisii maadaama uu ahaa nin sumcad wanaagsan ku dhex lahaa ciidanka. bishii 3aad sanadkii 1933 wuxuu Hitler ku guulaystay wakhtigan kursiga madaxtinimada ee dalka Jarmalka, waxaana jiray waxyaabo badan oo Hitler u fududeeyey inuu madaxweyne noqdo. waxaase ugu horreeyey nacaybka uu qabay iyo mowqifkiisii fog ee uu uga soo horjeeday dadka jinsigoodu saamiga yahay, ama sida aad u garan ogtahayba, dadka Yuhuudda loo yaqaano. Hitler wuxuu mas'uuliyadda dhibaatooyinka dhaqaale iyo tan bulsho ee ka jirta dalka Jarmalka dusha u saaray dadka Yuhuudda ah, isagoo aaminsanaa inay adduunka dib u dhac iyo dhibaato ku yihiin, ayna waajib tahay in lagu xasuuqo halkii lagu arkaba. isla markii uu Hitler xukunka qabsadayna, wuxuu bilaabay in uu dadkii Yuhuudda ahaa ka qaado dhalashada dalka Jarmalka. halkaasna ugama harin, balse wuxuu sidoo kale ka xayuubiyey dhammaan xuquuqdoodii ay dalka ku lahaayeen. Hitler waxa uu sameeyey xaafado gaar ah oo ay Yuhuuddu ku noolaan jireen, xaafado aan cid kale geli karin. Yuhuudiga ka soo baxa xaafadahaasna si toos ah ayaa loo toogan jiray. arrintu halkaas kuma joogsan, balse markii dambe waxaa la dhisay kaambasyo iyo xeryo lagu xasuuqo dadka Yuhuudda ah. waxaa lagu qiyaasaa dadka Yuhuudda ah ee uu Hitler dilay inay ka badan yihiin 6 milyan oo qof. dhanka kale, Adolf Hitler markii uu si buuxda ula wareegay xukunka dalka Jarmalka, waxa uu ku tallaabsaday horumaro ballaaran oo si weyn looga dareemay dhammaan Yurub iyo daafaha dunida. gudaha Jarmalka waxa uu bilaabay isbeddello badan. ugu horreynna wuxuu dhisay ciidan xoog leh oo dhallinyarada lagu qancin jiray, mararka qaarna lagu qasbi jiray inay ku biiraan. Hitler waxa uu hagaajiyey dhaqaalaha dalka Jarmalka kadib hoos u dhac weyn oo ka dhashay Dagaalkii Koowaad ee adduunka. waxa uu sidoo kale hantay kalsoonida shacabka, isaga oo noqday madaxweynahooda. dhanka kale, Hitler waxa uu bilaabay inuu jebiyo heshiisyadii la gaaray kadib Dagaalkii Koowaad ee adduunka. heshiisyadaas oo badankoodu ahaayeen kuwa lagu qasbay Jarmalka markii looga itaal roonaaday dagaalkaas. Hitler waxa uu ciidan geeyey goob ciidanka laga mamnuucay, wuxuuna duulaan ku qaaday dalalkii la isku oran jiray Czechoslovakia iyo sidoo kale dalka Poland. siyaasadda Hitler, sida ay arkayeen dalalka reer galbeedka ah, waxay ahayd mid ku dhisan gardarro iyo daandaansi dagaal, taas oo ku salaysnayd in wax kasta ay ku dambayn doonaan ciddii xoog leh. Hitler waxa uu nacayb dhab ah iyo cadaawad durugsan u hayay dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska, kuwaas oo ahaa labadii dal ee sababta u noqday in Jarmalka uu ku jabo Dagaalkii Koowaad ee adduunka. Hitler wuxuu ka baxay ururkii qaramada midoobay, wuxuuna bilaabay inuu wax kasta ku dayo, awood ciidanba ha ahaatee in uu adeegsado. tallaabadan ayaa markii dambe sabab u noqotay bilowgii Dagaalkii Labaad ee adduunka, dagaal ay ku wada hoobteen dhammaan dowladaha Yurub. dowladihii Ingiriiska iyo Faransiiska, oo xilligaas ahaa labada quwadood ee ugu awoodda badnaa Yurub, waxaa cabsi weyn ku haysay siyaasadda gardarrada ku dhisnayd ee uu Hitler waday. waxayna dhankooda bilaabeen siyaasadda maslaxadda ku dhisan si looga hortago dagaal kale oo Yurub ka dhaca. waxay aqbali jireen wax kasta oo Hitler dalbado, laakiin Hitler shakhsi ahaan ma ahayn nin doonaya heshiis iyo maslaxad. waxa uu u caddaa oo keliya dagaal uu uga aargudan karo dalalka kale, maadaama uu ahaa nin ciil iyo cadho badan qaba. wuxuu dhistay ciidan ballaaran oo cabsi ku abuuray dhammaan dowladaha Yurub. wuxuu ku dhiiraday inuu dhiso ciidanka badda. intaasna kuma joogsan ee wuxuu dhisay ciidanka cirka, oo markii hore laga mamnuucay Jarmalka inuu dhiso kadib Dagaalkii Koowaad ee adduunka. intaas oo dhan markii uu Hitler samaynayay, dowladihii uu u midyalisanayay indhaha ayay ka daawanayeen, cidna kama hadlin gardarradiisa. wuxuu noqday sida laandere aan cid ka baqayn. maxaa dhacay intaas kadib?
Hitler wuxuu si gardarro iyo ku talagal ah u weeraray dalka Poland isagoo xoog ku qabsaday. Markaas kadib, dulqaadkii dowladaha Yurub wuu dhammaaday, waxayna ku dhawaaqeen dagaal. Dowladihii ugu horreeyey ee dagaalka ku dhawaaqay waxay ahaayeen Ingiriiska iyo Faransiiska. Gadaalna waxaa uga soo biiray dalka Ruushka oo markii hore aan rabin inuu dagaalka galo, balse ku qasbanaaday markii uu Hitler weerar ku qaaday dhulkooda. Markii dagaalku si rasmi ah u bilowday, wuxuu noqday mid hal dhinac ka socda, oo dagaalka xooggiisa wuxuu ahaa dhanka waqooyi. Waxaa iska hor yimid ciidamadii Jarmalka iyo xulafadiisa oo Talyaanigu ugu horreeyo oo dhinac ah, iyo Ingiriiska, Faransiiska iyo xulafadooda kale oo dhinaca kale ahaa. Dagaalka guushiisii hore waxaa lahaa dalka Jarmalka oo si geesinimo leh u qabsaday magaalada Baaris, caasimadda dalka Faransiiska. Intaas kadib wuxuu bilaabay dagaal cirka ah oo uu ku qaaday magaalada London ee dalka Ingiriiska, balse khaladkii ugu weynaa ee uu Hitler galay wuxuu ahaa go'aankiisii ahaa inuu weerar ku qaado dalka Ruushka oo dhanka bari ka xiga, isagoo baaq dagaalna u diray Midowgii Sofiyeetiga. Halkaas ayay ahayd meesha uu Hitler iyo Jarmalka uga bilaabatay jabka iyo guuldarrooyinka isdaba joogga ah. Kadib jabkii Jarmalka ka soo gaaray dhankaas iyo Midowgii Sofiyeeti, xulafadii Jarmalka ee dagaalka kula jiray waxay noqdeen kuwa kala daata. Talyaaniga oo ugu itaal roonaa xulafadii Hitler ayaa ka baxay garabkiisii kadib markii uu Maraykanku si hoose ula heshiiyey Benito Mussolini, hogaamiyihii xilligaas ee Talyaaniga. Markii uu Talyaanigu ka baxay garabka Jarmalka, xulafadii kale ee hartayna waa laga adkaaday. Marka laga reebo dalka Jabaan ayaa sabab u noqotay in Maraykanku markii dambe si toos ah u soo galo dagaalka. Riyadii Hitler ee ahayd inuu qabsado dhammaan qaaradda Yurub waxay soo afjarantay markii dagaalka looga adkaaday, looguna jebiyey si xun. Dagaalka kadib, Hitler waxaa la soo deristay xaalad caafimaad oo liidata iyo niyad jab aad u daran. Taasina ugu dambayn waxay keentay inuu gacantiisa isku dilo. Taariikhdu markay ahayd 30kii bishii Abriil sannadkii 1945, Hitler wuxuu hadda ku aasan yahay magaalada Berliin, caasimadda dalka Jarmalka. Sidoo kale waxaa lagu xusuustaa inuu sabab u ahaa dhimashada dad ka badan 25 milyan oo qof intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka.